Volcano siyaasadeed ayaa ka dhex qarxaday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Ciidamadii ugu badnaa ayaa meel walba la isaga yeertay, sidoo kalena cabsi dagaal ayaa ka taagan gudaha magaalada Boosaaso. Puntland ciidan hor leh ayaa la filayaa in ay u soo dirto gudaha magaaladaas oo siyaasiyiintii ugu badnaa ay ku sugan yihiin shirweyne wada tashi oo New Puntland ay sheegeen in lagu dhisayna halkaas ayaa looga dhawaaqay. Wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Hubka Deni uu ku daabulayo dhinaca magaalada Boosaaso, ciidamadan dagaalamaya ama laga cabsi qaba inay dagaalamaan halka ay ka kala yimaadeen ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal. Haddii ay tahay markay kugu horeysay aad soo booqato, waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faalada aragtida nagula wadaagtaan, mar kalena ku soo dhawaataan channelkeenan. Mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. Aynu ku bilowno. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari maalmihii la soo dhaafay waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo aad u culus isla markaana u dhaxaysay siyaasiyiin mucaarad ah oo si weyn markaasi u taageersanayn madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Siyaasiyiintaas waxaa ka mid ah rag si weyn horay looga yaqiinay, sidoo kalena u soo maamulay dhinaca Puntland. Magaalada Boosaaso ayaana la tilmaamay inay fadhi u tahay xubnahan, iyadoo weliba la werinayo in ciidamadii ugu badnaa ay la soo galeen gudaha magaaladaas si halkaasi ammaankooda ay ugu xaqiijiyaan. Dhinaca kale isla Puntland ayaa la weriyey inay ciidamadii ugu badnaa iyadana laga cabsi qabo inay u dirto gudaha magaaladaasi, iyadoo la werinayo in maalmihii lasoo dhaafay ay socdeen dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aad u xoogan iyo kulamo qarsoodi ah oo markaasi dhexmarayay dhinacyada mucaaradka iyo sidoo kale ismada dhaqanka ee gudaha magaalada Boosaaso ee dowlad goboleedkaasi Puntland. ilaa hadda si rasmi ah looma oga waxa rasmiga ah iyo xogaha kala duwan ee halkaasi ka imaanaya, laakiin waxaa la werinayaa in saacadihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan ay magaaladaasi Boosaaso ku yeesheen siyaasiyiintan mucaaradka ah oo ay hogaaminayaan guud ahaanba ninka lagu magacaabo Maxamuud Mashruuc iyo sidoo kale Faarax Cali Shire oo isagana ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga hor yimid nidaamka Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland. Xubnahan ayaa ku dhawaaqay shirweynaha wada tashiga beesha ama beelaha Cali Saleebaan, kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay si weyn Puntland ay u sheegaysay in dhibaatooyin xoogan ay ka wadaan gudaha magaaladaasi Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Si rasmi ah looma oga, laakiin xogaha iyo wararka aan helayno waxa ay sheegayaan in Puntland ciidamadii ugu badnaa ay ku daabuli karto gudaha magaaladaas, iyadoo saacadihii lasoo dhaafayna si weyn ay markaasi u dareemayeen shacabka magaalada Boosaaso dhibaatooyinka halkaasi ka imaan kara. Haddaba Xasan Abgaal oo isagu horey u soo noqday wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Puntland ayaa sida la sheegay ka mid ah dadka sida gaarka ah ee halkaasi ugu sugan, oo la sheegayo in saacadihii lasoo dhaafayba halkaasi ay ka wadeen kulamo kala duwan iyo abaabul ay ku doonayaan in shirweynahan uu kaga qabsoomo gudaha magaaladaasi Boosaaso ee dowlad goboleedkaasi Puntland. ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in halkaas markaasi la geeyo amaba ay tagaan xubnahan si dhibaatooyinka halkaasi ka taagan ee la tilmaamay in Deni uu ka wado deegaanada qaar ee Puntland ay kaga hortagaan. ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca Puntland, laakiin wasiirkeedu warfaafinta si rasmi ah ayuu u weeraray wasiirkii hore ee maaliyadda dowlad goboleedkaasi Puntland Xasan Shire Abgaal oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn xilligan markaasi aan ula dhacsanayn nidaamka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. gaarigu wacana marka wasiirka maaliyadda tahay, marka xilka laga qaadana dalka iyo dadka waa in xabad lala dhaco, bal isqabadsii duruufta miyaa marba qof ka dhigta, ayuu yiri oo weliba bartiisa gaarka ah ee Facebooka ayuu qoraalkaasi ku daabacay. dad badan oo siyaasiyiin ay ku jiraan qaarkood ayaana markaasi falceliyey oo ay ku tilmaameen weliba in wasiirku garab uu u noqday dowladda ama xilligan maamulka uu ka tirsan yahay ee Saciid Cabdullaahi Deni uu hogaaminayo. dhinaca Garowe waxaa la tilmaamay in ciidamadii ugu badnaa oo dhinaca Puntland ka socda ay ka soo ruuqaansan karaan kadib markii heegan buuxda la geliyey ciidamada maamulkaasi, si gaar ahna loo sheegay inay ku wajahan yihiin gudaha magaalada Boosaaso ee dowlad goboleedkaasi Puntland. saacadihii lasoo dhaafay waxaa la arkayay gaadiid dagaal oo aad u badan oo ay weliba wehliyaan saraakiil caan ah oo sarsare oo maamulkaasi Puntland ka tirsan, si gaar ahna loo sheegay in ay doonayaan inay tagaan gudaha magaalada Boosaaso
loogana hortago fal kasta oo lagu carqaladeyn karo ammaanka guud ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo la sheegay inay yihiin ciidamo beeleed sidoo kalena ay soo wateen siyaasiyiinta aan soo xusnay Maxamuud Mashruuc iyo sidoo kale Faarax Cali oo ay wehliyaan Xasan Cali Shire Abgal oo isagana ah siyaasiyiinta madaxweynta ah ee dhinaca Puntland sidoo kalena sida weyn uga soo horjeeda nidaamka Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland haddaba Puntland madaxweynaheedu gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi dhinaca kale isla gudaha maamulkiisa waxa ka socda shirar siyaasadeed oo aad u abaabulan ismada dhaqanka iyo saraakiil kale ayaa wehliya xubnahan siyaasiyiinta ay la tilmaamay inay mucaarad yihiin sidoo kalena ku dhawaaqi karaan dhismaha New Puntland oo ay tilmaameen in lagaga dhawaaqayo gudaha magaalada Boosaaso ee dowlad goboleedkaasi horey siyaasiyiin ayaa ku jira oo iyagana si rasmi ah markaasi uga hadlay arrintan oo ay ku jiraan xildhibaano qaar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo tilmaamay in wax looga dhawaaqay dhinaca Puntland ay tahay wax laga yaqyaqsado ama laga cabsado taas oo ay ku tilmaameen inay ahayd in dhammaanba laga baaqsan karay wax ka dhacay xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo kamid ah xildhibaanada sida weyn ula dhacsan nidaamka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qoraal uu ku daawacay bartiisa gaarka ah ee Facebook waxa uu kaga hadlay Puntland gobolada ay ka kooban tahay meelaha ay ka taliso iyo magaalooyinka sida gaarka ah markaasi ay u hoos tagaan waxaana uu si cad u sheegay in siyaasiyiin wax isku tilmaamay oo waliba mucaarad ah oo doonaya maalmihii la soo dhaafayna sheegayay inay dhisayaan New Puntland ay ka hortagto dowlad goboleedka Puntland waxa qoraalkiisa uu ku yiri waxaan arkayay ayaantan akhyaar siyaasiyiin iyo ismo ah oo reer Puntland ah oo leh waxaan dhisaynaa New Puntland maamulka Puntland waxa lagu dhisay 5 gobol iyo degmada Buuhoodle welina waa sidii gobolada Sool iyo Sanaagna waxa xarig laastig ah oo afna Garowe yaala afna Hargeysa yaala hadba kii sii daaya ba gobolku ka dhalinaya ayuu yiri waa xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hadalkiisan ayaa u muuqda fariin ku socota dhammaanba siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo ay ku sugan yihiin xubnahan sidoo kale la soo warinay in maalmihii la soo dhaafay ilaa saacadii la soo dhaafay ay ka wadeen kulamo gaar ah oo ay la lahayeen siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaha kala duwan isugu jira ee maamulkaasi waxaana la warinayaa in sidoo kale ay socon karaan kulamadan siyaasadeed ee la doonayo in lagu dhiso maamulka madax bannaan kan Saciid Cabdullaahi Dani haddaba Dani marka laga soo tago in xaalad siyaasadeed arrimaha gudaha ah uu wajahayo waxa dhinaca kale uu la tacaalayaa arrimaha diriskiisa sida waqooyi bari Soomaaliya oo culaysyo kala duwan ay sheegeen siyaasiyiinta garabka u ah inay ka taagan tahay sidoo kale dhinacyada waxa kamid ah dowladda dhexe ee Soomaaliya oo iyadana cadaadis gaar ah saaraysa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani si uu kaga baaqsado mucaaradnimadiisa iyo ka hor imaanshaha dowladda dhexe ee Soomaaliya kulamo loogu baaqay inay isugu yimaadaan kooda bishan ayaana hubinta la'aan ku jirta imaanshihiisa Muqdisho waxaana la filayaa in uu ka dego magaalada Garowe iyo deegaanada kale ee Puntland xilli uu ka soo laabanayo gudaha magaaladaasi Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya isagoo waliba kulamo la lahaa siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda ugu waaweyn sida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed wakiilada beesha caalamka oo Nairobi uu kula kulmay dhammaantoodna arrimaha siyaasadeed ee dalka ayaa looga hadlayay gaar ahaan maamulka Puntland wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa idinka ayaana noqon doona dadka ugu horeeya xogtaasi hela waxaan idinka codsanayaa haddii aad ilaa dhamaadkana la soo gaarteen inaad saaxiibadina la sii wadaagtaan muuqaalkan sidoo kalena meel dheer la gaarsiisaan